Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u macaan badan oo ay ku sugan tahay cibro qaadasho. Maalin maalmaha kamida boqoradii muslimiinta soo martay oo lagu magacaabi jiray Sulaymaan al-Qanuuni ayaa wuxuu ka soo toosay hurdo isaga oo argagaxsan. Kadib wuxuu u yeeray ruuxii gacanyaraha u ahaa, wuxuuna ku yiri waxaad noo diyaarisaa fardo. Waxaan maanta doonayaa inaan soo kormeero dadka muslimiinta xaaladooda iyo waxa ay ku sugan yihiin. Markii uu soo baxay boqor Sulaymaan isaga iyo gacanyarihiisii ay wadada dhexdeeda waxay ku arkeen ruux meyd ah oo meel yaalo, qofna aysan u soo dhawaanaynin. Markaasuu boqor Sulaymaan wuxuu yiri, waa kuma ruuxan meydka ah ee meesha loo kala tagay? Waxay dadkii yiraahdeen, meydkani waa nin zaani ahaa, qamrigana cabi jiray, wax caruur ahna ma uusan dhalin, balse wuxuu la noolaa xaaskiisa oo kaliya. Boqorkii aad ayuu u carooday, markaasuu wuxuu yiri, soo ninkani kama tirsana ummadda Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Kadib boqorkii wuxuu qaaday meydkii, wuxuuna u geeyay xaaskiisa. Markii ay xaaska aragtay meydka ninkeeda ayay iska oysay. Boqorkii ayaa wuxuu aad ula yaabay naagtii ooyinteeda, markaasuu ku yiri, maxaad ugu ooynaysaa ninkaaga soo ma ahayn ruux zaani ah, qamrigana caba? Markaasay ku tiri boqorkii, ninkayga wuxuu ahaa nin cibaado badan oo zaahid ah, hase yeeshee ma uusan dhalin wax ubad ah. Jaceylka uu qabo carruurta darteed wuxuu aadi jiray meelaha lagu gado qamriga, markaasuu wuxuu soo gadi jiray qamriga meesha lagu gadayo, kadib wuxuu ku daadin jiray musqusha. Markaasuu wuxuu dhihi jiray, Allah ayaa mahad iska leh, waxaan ka fududeeyay dhalinyarada muslimiinta xumaantii ay samayn lahaayeen qaarkeed. Sidoo kale wuxuu u tegi jiray gabdhaha jirkooda ka ganacsado, wuxuuna siin jiray maalinta lacagteeda ay jirkooda uga ganacsan lahaayeen, wuxuuna ku shardin jiray inaysan maalinka oo dhan xumaan aysan samaynin. Kadib wuxuu dhihi jiray, Allah ayaa mahad iska leh, waxaan ka fududeeyay gabdhahan iyo wiilasha muslimiinta xumaantii ay samayn lahayn qaarkeed. Markaasaa waxaan ku dhihi jiray, dadku waxay arkayaan daahirkaaga, waxayna u malaynayaan inaad adiga xumaanta samaynayso. Waad dhiman doontaa, waxaadna weyn doontaa ruux meydkaaga dhaqo islamarkaana salaad ku dukado. Wuu igu qosli jiray, wuxuu dhihi jiray, waxaa igu dukan doona boqor Sulaymaan, madaxda, wasarada, culummada iyo muslimiinta oo dhan. Boqorkii markii uu ogaaday xaalkiisa aad ayuu u ooyey, wuxuuna yidhi, wallaahi anigu boqor Sulaymaan ayaan ahay, aniga ayaa gacanteeda ku dhaqi doono, aaskiisana aniga ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doono, waxaana u soo kulmin doonaa muslimiinta oo dhan. Kadib boqor Sulaymaan wuxuu ciidankiisii ku amray in ay ka soo qayb galaan ayaga iyo dhammaan muslimiinta oo dhan. Dhab ahaantii waxaa halkaa isugu yimid dad aad u fara badan, waxayna noqotay ninkii janaasadiisii janaasada ugu dadka badan ee salaad lagu tukado. Qisadani waxaynu ka qaadanaynaa inaadan ku kadsoomin dadka muuqaalkooda. Sidoo kale waxaan ka qaadanaynaa inaad samaysato camal wanaagsan oo adiga iyo rabbigaa keliya idin dhexeeyo, dadkuna aysan ka warqabin. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaal cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.